walaalayaal waxaad tihiin ciidanka xasilinta degmada Balad Xaaw waxaad tihiin ciidanka dawladda Soomaaliya ee federaalka ciidanka xasilinta looguma talagelin inuu qof handado inuu qof dhibaateeyo waxaa loogu talagalay inuu cadowga degmada ka qabto waxaa loogu talagalay nabadgelyo la'aanta cidii wado in ay magaalada ka qabtaan magaalada waxaa la rabaa in masaajidada si nabad ah loogu tukado waxaa la rabaa si nabad isbitaallada in loo aado waxaa la rabaa si nabad ah ganacsiga in uu u socdo waxaad tihiin ciidan qaran maalinkii yawmal qiyaamada waa lin weydiinaya mas'uuliyadda aad qaadeen shacabka reer Balad Xaaw ama shacabka Soomaaliyeed baad u qaadeen shacabka asaga waxaa la garab istaagtaan walaalayaal ilaahay baan ku dhaariyay mas'uuliyadda lin saaray oo maanta aad wadaan si daacad u guto qabiil ha ku darina ninkan ba saaxiibkii ha ku darin sharci gacanta ha ku qaadan qof kasta oo Soomaali baad mas'uul u tahay waad maqlaysaa ninka kale oo ii sheegay madaxda iina waxaa loo baahay bara saabka ku soo dhaweyn rabaa waxaa loo baahay mas'uuliyadda aad haysaan maalinkii yawmal qiyaama waa la kula xisaabtami amarka aad fulinaysaan waa amarka dawladda lama raba marka wax kale oon jirin in lagu darsado waxaa tihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed degmada Balad Xaaw shacabka degan waad aragteen markaan hadda imaanay dawladdu u jecel yihiin noo soo dhaweeyeen waxaa laga rabaa waxa xasilinta aad u tihiin waa degmada shacabka jooga inaad mas'uul ka tihiin inaan xabad lagu dhex ridin cid ku ridaysa inaad tilaabo ka qaataan waxaan idin sheegayaa ciidankan nimanka hadda Madheero dhex galay hala weeraro dawladda ma soo amrin annagana ma amrin hadda dawladda hala weeraro wali ma idin tiri annaga ma idin ruuri hala weeraro saaki ayagoo magaalada bil ka qaato oo maxaan ku raaddaa qaadkooda iyo qashankooda waxooda ka gatay soo saldhig xabad kuma aysan bilaabin ma gacmaha laga laabtay waad la dirteen in waad ka disheen labana waad ka dhaawacdeen waxaa hadda dariiska leen kugu dhiibi maaha ayaga kaligood maaha degmada Balad Xaaw waxaa gacanta ku hay dawladda Soomaaliya adinkaan mas'uul kaga ma leedin ku dabagalay mar dambe taliyihiina la weydiinaya waxaa laga rabaa amarka la siiyay inaad qaadataan Kenya waxaan u sheegaynaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku gabanaya oo maxaan ku raaddaa ka soo arbushay saldhigga Balad Xaaw sax ma ahan arintaas madaxda Kenya haday ku og tahay waxaan sameyn doonaa in halkan aan ka arbusno annaga madaxda Kenya waxaan sameyn doonaa hadii arbushkaas ay amar ka qaadan waydo inaan halkan ka arbusnaan sameyn doonaa haday amarka fulin waydo waxaan ugu digaynaa dawladda Kenya daris baan nahay waxaan ilaalinaynaa wanaagga waxaan ilaalinaynaa nidaamka ilaalisa in saldhiggeeda noogala soo baxo oo nagala soo arbusho ma yeelin waxaan u dul qaadanaynaa ma aha Kenya daris baan nahay darisnimada ha ilaalisa haday ilaalin waydo waxaan amriyaa ciidankan inay Nairobi ka casheeyaan